بسم الله الرحمن الرحيم marka hore ilaahay baa mahad leh maada ilaahay kadib waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa dhalinyarada aqoonyahanka isugu jirta macallimiinta dhaqaatiirta iyo aqoonyahan kalaba oo dhalinyaro reer Soomaaliland isku soo abaabushay ujeedadooduna ay tahay in ciidanka booliiska dhiirigeliyaan horta marka ugu horeysa dhiirigelinta waa idinka gudoomay aad iyo aad baan u mahadsantiin waxa kaloon halkan idinka ballan qaadaya in bulshada anaga u baahan waa bulshadayada aanu ka nimid bulshadu waa tan doonayna in la shaqeyso bulshadu waa tan doonayna in isdhexgalkaygu wanaagsanaado talaabooyin badan oo qaadano way jiraan oo mesela saldhigyada Hargeysa kala caasimada ilaa 4 saldhig aan wax community based ila ka sameynay direys baa loo galiyay yani siday u ogaadeen in loo ogaadaan kiisaska dhacaya oo inooga caawiyaan waxa ka sii fiican tan maanta aqoon-yahanana nolol timaadeen oo xiriirada guntooda in la ogaataan oo bashar baarno ciidanka booliisku uu khaldami karaa wixii khaldan sida wanaagsan nasiixa marka nologu sheego waa qaadanana waana tuusinana ciidanka booliiska waxa la aasaasay 3 bishii November 1993 waxaan iga horeeyay rag badan oo waayaraga oo khabiir ah oo wax badankoodu dhinteen qaar nooluna jiraan dhammaantood inta dhimatay waxaan leeyahay oo naxariisto jannadana ha geeyo nimba meel buu soo gaarsiiyay laakiin maanta alxamdulillah anoo ku amaanay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud bariiskeenu imka maanta heer wanaagsan buu marayaa xiradan imka joogno kale hadaa soo bixi timaadaan ilaa 4-5 tiriino kala gaar ah ka socda madheero hadda ka socda seminaar kala ka furan oo qaybta baarista biyada kaliya meel badan lagu bixinayo waxa weey markaa annagu waxaanu diyaar u nahay inaanu dilo shaqeyno waxaan si gaar ah idinka mahad celinaya yani waxaan nolol timaadin idinku iskiin si soo abaabulay aan noo timaadaan oo noo sheegta waxa noogu socotaan waan soo ka dhaliilay laftiis dhaliishiisa waa ogolay laakiin waxa wanaagsan deenu si wanaagsan oo ciidamadu maaha booliiska qodobada xeer bay leeyihiin qofkii gafadee sharcigu la soo bulshada kale reer Soomaaliland bulshadu waa tan hiiliyo oo waxaynu nabadgelyada rasmiga marka ilaahay maada ka gaadhayn ilaahay ka nimaadno mujtamaca reer Soomaaliland sida ciidamada amniga ee booliiska ay u gacan siiyaan waxay kaliftay Soomaalidu waxay tiraa farkali forma dhaqdo waxyaalo badan oo ay qofka muwaadinka markuu soo sheego in dhacdo warkay ama waxa dhacay ninka booliiska loo soo sheegay saldhiga jooga ama oo si station ahaado ama oo si kareem ahaado ama xubin kale ciidanka booliiska kamid ahaato وين قف كان مواد كوي حصو شيء رنو قاطع مركورة سيدا برشوس تلمامية حير كتلمامية أو كجون جارو سو قف كي همدي سكر وقاضو أما مور الكيسة ودقيستو واحترام سيو إن وحوي مركا إن أنت وكما تيجي إن تريني كلا كرديو ووضنا ساكدا صاروا تيام الرنو من ديرو رناي خالكنا واحد شعلا على صلاة ركسوا بيجما يدو dhowr group oo kala nooc halkan leeyahay qaar gaardiskii koow looga bilaabayo qaar galaasi ku jira qaar maxaan ku raacay cilmiga kala loo dhigayo imakadana waxyaalo badan ma noo qorshaysan kulli muddadii makaan joogay rag ilaa dhowr kini haday tahay qaar reform lagu sameeyay haday tahay qaar dalalka dariska wax ka soo bartay haday tahay qaar halkan madheera galay haday tahay qaar halkan ku qaatay intaba way leeyahay laakiin waxaan halkan ciidanka booliiska fariin baan ugu dirayaa waxa weeye waa aragtaan aqoonyahankeeni waa labeentii dalka yani niyada iyo wanaaga inoo hayaan waxaan markaa halka ciidanka booliiska ka faraya inay intani shacabkii ka wakiilihiin oo matalayaan maadaama ay nagu dhiirigelinayaan shaqada adag aynu qaranka Soomaaliland iyo bulshada reer Soomaaliland u hayno inaynu inaguna ogaano kaalinta ay noogu jiraan iyo inaynu ilaalino qofka hadduu xataa dambi galo wuxuu xaq u leeyahay in la ilaaliyo xuquuq buu leeyahay in la ilaaliyo waanu ilaalinaa sometimes waa laga yaabaa inuu khalad dhaco laakiin waa in la saxo si wanaagsan loo saxo maaha in dhaliil aan jirin la sheego maaha waxaan jirin la sheego waxa weeyaan sidii ninkii halkaas sheegay horta waa nin de meelaha ka hadlo iska jooga waxa weeyo habar fadhida la dino xoga fudud ayaan leeyahay ninkaas waxaana wanaagsan intaanu horta dhaliisha meelaha ka sheegin inuu de horta madaxda u yimaado uu sheego oo uu yiraahdo oo bal arrinta madaxdiina sare wax ka qabta amaaniga
ama ku-xigeenada ama hogaamada ama qaybaha markaa kana dhaliilayana waa soo dhaweynaynaa laakiin waxaanu leenahay warna saxoo noo kaalayo gacmo furan baanu kusoo dhaweynaya laakiin intaad isteeday biliiska dhaliin qaranka wax yeelaysaa ama ciidankii wax yeelaysaa taasi adigana waxay ku yeelaysaa baan ku leeyahay aad ciidanka ku sheegayso laakiin si farsamaysan u sheeg annaguna waa waajibna saaran marka laga yimaado xilkanu qaranka u hayno inaanu bulshada reer Somaliland ilaalino dhowro amnigooda xuquuqdooda iyo ciddii kale ee waddanka joogtaba waxay waajib nuga inaanu xuquuqdooda ilaalino waxba hadalka badi maayo waa fursad qaaliya oo wanaagsan dhalinyaradan aad ugu mahad celinayaa waxa weeye daawal qof fiican baliyo hawl wanaagsan baa qabtay waarka jiray laakiin mutacalimiin aqoonyahan si soo ururiya waa markii koobaad ee iskood intuu soo abaabulaan ugu yimaada insha Allah ay kala badan oo ku soo dayan waxaanu diyaar u nahay inaanu bulshadeeda ilaashano inaanu qarankayaga ilaashano idina soo dhaweyno waxa kale oo idinka codsanaa idinkii bulshada kale halkan fariin uga daraya kooxaha dhalinyarada imka uu ka sheekeeyay madaxa shaybaar uu ka sheekeeyay ninkii dhalinyarada in oo kuwa ugu daran waayo anaga laftiga iyagu kuma dayno xarig wax kuma saxdo waxaanu ku daynaa in qaar badan baanu ka saaray qaar badan baa shaqo qaranka ka helay qaar badan baa ciidamada la qoray waxay ka mid tahay talaabooyin aanu qaadnay ayay ka mid tahay laakiin bulshada iyo u qaadanin dee mid faraa laga gubtay mooyaane oo laga yaabo in waalidkii faraa ka gubtay ubadku ma wada xuma waa qaybo ka mid ah waxa weeye inanka kooxaasi markay istilayaan hooyo ma eegaan inana ma eegaan oday ma eegaan waxa weeye markaa aqoonyahankii imka taagan ayaa laga yaabaa in meelaha marka jaamacadda ka soo baxdaan inay laptopka ku bureeyaan ku dilaan iyagoo wax kale oo aanu lahayn aanu jeedo kaleba kala hayn qaar ba wax dadka ba u laaya oo ka xaraabaysaneen oo maxaad u dishay ninkan maxaa qofkan u garaacday oo ka xaraabaysaneen ku leeyahay waana dirrig waaweyn oo maxaad ka dambi baad gashaday maxaad u xaraabaysanaysaa marka waxa weeye aad iyo aad ba mahadsantiin waan soo dhaweynayaa diyaar baan ahay idinkii cidii kale idina shahaadada ciidanka biliska waan idinka gudoomay bulshada reer Somaliland waan mahad celinayaa aqoonyahanka reer Somaliland waan mahad celinayaa dhalinyarada Somaliland oo tiirarka ugu waaweyn ee ku taagay qaranka Somaliland waan ka hambaleynayaa halkan ee aqoonyahanka mid iskuul hoose mid jaamacad ka baxay imika intan ilaa 10 dhaqtar baa ku jira waxa ilaahay lagu mahadiyo waxa weeye macallimiintii baa ku jirta waa intii bulshada dadka ugu badan gacanta ku haysaa ma dhaxgaleysay shaqaale kale ku jira dad kale oo inama kale jaamacada ka baxo banaanka soo jooga ku jira qaar imika ku jira marka aad iyo aad baan mahad celinayaa annana wanaaga anana doonaysaa in ugu dhiirigelinayaan wanaagiisana bal qaadanaa inuu bulshadeedu adeegno si wanaagsan ugu adeegno training kana badino wadno aad iyo aad baan u mahadsantihiin